بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نمسبتيا صدح يا tobanka bisha December sanadka 2025 oo ku beegan 22ka bisha Jamaadul Aakhir sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada saakay barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamid ah Mareykanka oo ka hadlay mowqifkiisa ku aadan in ciidamada caalamiga ah ee la geenayo Mareyka Gaza ay la dagaalami doonaan Hamas iyo in kale wafdi ka socda Sacuudiga iyo Imaaraadka oo gaaray magaalada Cadan si loo dejiyo xiisada ka aloosan bariga dalka Yemen maraakiib Turkigu leeyahay oo waxyeello ay ka soo gaartay duqeyn Ruushka oo ka geystay dalka Ukraine Karim Khan oo ah dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ICC oo sheegay in digniin ay uga timid dawladda Britain taasi oo la xiriirtay inuu soo saarin amarkii lagu soo qabanayay ra'iisul wasaaraha Israa'iil dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka inta daawadayaan si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa waddanka Yemen oo dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay xiisado colaadeed iyo iska horimaadyo ay ka aloosanaayeen gobolka Xadiramuud isla markaana lagu soo waramayo in ay gacanta ku dhigeen gobolkaasi iyo kandariska lah ee Al-Mahra ciidamada STC ee Imaaraadka uu taageero haddaba wararkii ugu dambeeyay amuurahani iyadoo xiisadu ay sii xoogaysanayso ayaa lagu soo waramayaa in wafdi wada jir ah oo ka socda Sacuudiga iyo Imaaraadku xalay ay gaareen magaalada Cadan wafdigan ayaa u yimid halkaasi in ay ka shaqeeyaan dejinta xiisadaha ka dhashay tillaabooyinka ay qaadeen ciidamada golaha kumeel gaarka koonfureed ee loo yaqaan STC kuwaasi oo diiday dalabkii Sacuudiga ee ahaa inay ka baxaan gobolada dhawaan ay la wareegeen wakaaladda wararka waddanka Yemen u faafisay ee Saba ayaa ka soo xigatay ila ka tirsan xafiiska gudoomiyaha golaha hogaaminta madaxtooyada dalka Yemen Rashad Al-Alimi in booqashada wafdigu ay qayb ka tahay dadaalada Sacuudiga iyo Imaaraadka ee lagu xoojinayo midnimada golaha hogaaminta iyo dawladda isla markaasna dib loogu soo celinayo xaaladda gobolada bari sidii ay horay u ahayd arrintan ayaa timid kadib markii Sacuudigu Arbacadii ay dalbadeen in dhammaan ciidamada STC ay ka baxaan gobolada Xadiramuud iyo Al-Mahra maalmihii la soo dhaafay STC ayaa sheegtay in ay si buuxda ula wareegtay Al-Mahra isla markaasna ay gacanta ku dhigtay goobo istiraatiiji ah oo ku yaal Xadiramuud iyo Shabwa oo ay ku jiraan xarumaha shidaalka ila rasmi ah ayaa tilmaamay in wada tashiyada ka dhacay Cadan ay diiradda saari doonaan joojinta tillaabooyinka halka dhinaca bixitaanka ciidanka aan deegaanka u dhalan iyo in awood la siiyo dawladnimada iyo maamulka maxalliga si ay u gutaan waajibaadkooda si waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta dhinaca kale boqolaal qof oo reer koonfureed ah ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee qasriga Maasheekh ee madaxtooyada ee magaalada Cadan iyagoo dalbanaya in lagu dhawaaqo dawladda koonfurta Carabta waxaana ay siteen calanka koonfurta Yemen iyo kan Sacuudiga iyo weliba kan Imaaraadka Sacuudiga ayaa mar kale ku celiyay diidmada ku aadan samaysashada ciidan kasta oo ka baxsan awoodda dawladda iyagoo ku baaqay xasilooni iyo wada hadal si looga hortago inay sii xumaato xaaladda amni dhaqaale iyo mid bani'aadamtinimo ee dalkaasi ka jirta wixii wararkan ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii aan la idmo bal markan aynu eegno xaggaas iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa weerar ku qaaday laba dekedood oo ku yaala dalka Ukraine taasi oo keentay burbur soo gaaray saddex markab oo ay leeyihiin shirkado Turkiya kuwaasi oo ay ku jireen markab siday sahayda cuntada sida ay sheegeen mas'uuliyiin reer Ukraine iyo shirkadda leh markabka
weerarkan ayaa dhacay maalmo kadib markii Moscow ay ku hanjabtay in Ukraine ay ka go'doomi doonto dhanka badda. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkii hore ku goodiyey in uu ka jawaabi doono weerarada diyaaradaha droniska ee badda Ukraine ay ku qaaday maraakiibta shidaalka ee sida qarsoodiga ku safra kuwaasi oo la rumaysan yahay in Ruushka uu adeegsanayo dhoofinta shidaalkiisa halka Kiev ay sheegtay in tani ay tahay isha ugu weyn ee maalgelinta Ruushka ee dagaalka socday ku dhawaad 4 sano. macluumaadkan waxaa sidoo kale ka mid ah in weerarkan uu dhacay shalay gelikii dambe waxaana uu yimid saacada kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in dhigiisa Ruushka ay isla garteen sida loogu baahan yahay xaaladan in wax laga qabto. waxa kale oo uu sheegay in uu ka dalbaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in xabajoojin kooban laga dhaqangeliyo xarumaha tamarta iyo dekedaha markaasi laga faa'iideysan karo. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa soo dhigay sawirro muujinaya dab weyn oo ka kacaya markab ku sugnaa dekeda Chornomorsk ee gobolka Odessa halkaasi oo dabdamiyaashu ay ku dadaalayeen daminta dabka. Zelensky ayaa sheegay in tani mar kale ay cadeynayso in Ruushka uu si dhab ah uga faa'iideysanayo fursadaha diblomaasiyadda balse uu sii wado dagaalka uuna burburinayo nolosha caadiga ah ee reer Ukraine. shirkadda maraakiibta ee Gink ee leh markabka Gink T ayaa sheegtay in weerarka u dhacay abaar 4 galabnimo waqtiga Ukraine shalay isla markaasna aysan jirin khasaare nafeed oo soo gaaray shaqaalaha markabka. Ruushka kama soo jawaabin fariimo loo diray wasaaradda gaashaandhigga oo wax looga weydiinayay arrimahani. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine Oleksiy Kulyaba ayaa sheegay in weerarka uu si toos ah u beegsaday maraakiib ganacsiga kuwa saadka rayidka isagoo intaasi ku daray in dekada lagu weeraray diyaarada dronisa iyo waliba gantaalad nooca balastiga. wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa xaqiijisay burburka ku dhacay maraakiibta ku sugnayd dekada Chornomorsk iyadoo sheegtay in aysan jirin wax dhaawac ah oo soo gaaray muwaadiniinta Turkiga isla markaasna waxay ku baaqday in la joojiyo weerarada khatarta ku ah badbaadada maraakiibta gooshaysa badda madow. waxaan u gudbaynaa goordhow war weyn oo ku aadan dacwad oogaha maxkamadda ICC oo sheegaya digniin culus inay u jeedisa Britain intii uusan soo bandhigin dacwadda lagu soo oogay Netanyahu. waxaa kaloo idin haynaa Maraykanku u cadeeyay mowqifkiisa la xiriira in ciidanka la geeyey Marayka qasa ama la geynayo ee caalamiga ah ay la dagaalami doonaan Xamaas iyo kale. laakiin intaan u gudbin wararkaas aynu ku hakanno qadar wadaya si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir. waxaad la socotaan oo daawanaysaan barnaamijkii wararka maanta oo subaxnimadan sabtida toos idinkaga imaanaya istuudiyahayaga koowaad. babakan ay eegno war la xiriira arrimaha Maraykanka Gaza. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyadoo soo xiganaysa mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Maraykanka waxa ay sheegtay in ciidanka caalamiga ah ee xasilinta ee magacooda loo soo gaabiyo ISF la geyn karo Maraykanka Gaza horaanta bisha January. mas'uuliyiintaasi oo codsaday in magacooda aan la shaacin ayaa sheegay in ciidankani uusan dagaal la geli doonin dhaqaaqa Xamaas isla markaasna dalal dhowr ah ay muujiyeen xiisaha ay u qabaan ka qayb qaadashada ciidankaasi. waxay sidoo kale tilmaameen in mas'uuliyiinta Maraykanku ay haatan ku hawlan yihiin go'aaminta tirada ciidanka, qaab dhismeedkiisa, tababarkiisa iyo xeerarka la xiriira ka qaybgalka howlgalka. mas'uuliyiintu waxay xaqiijiyeen in laga fakarayo magacaabista generaal Amerikaan ah oo hogaamin doona ciidankan, laakiin weli go'aan kama dambaysa lagama gaarin arrintaasi. geesta kale shabakadda Axios ee laga leeyahay Maraykanka ayaa ka soo xigtay mas'uuliyiin Amerikaan iyo Israa'iiliyiin oo sheegaya in maamulka Donald Trump uu marayo marxaladaha ugu dambeeya ee dhismaha qaab maamul cusub oo qasal laga samaynayo isla markaasna Trump la filayo inuu magacaabo generaal Maraykan ah oo hogaamin doona waxa loogu yeeray ciidanka caalamiga ee xasilinta Maraykanka Gaza. safiirka Maraykanka u fadhiya qaramada midoobay Mike Waltz ayaa toddobaadkan booqday Israa'iil waxaana uu u sheegay Netanyahu in mas'uuliyiin
maamulka Trump uu markaasi maamulkiisa ka tirsan ay ka shaqaynayaan hawshan ciidanka isla markaasna la magacaabi doono taliyaha ciidamadaasi qaraarka golaha ammaanka ee la ansixiyay 17 November ayaa ogolaanaya in Gaza laga dhiso golo nabadeed oo iyo in dalalka la shaqaynaya ay sameeyaan ciidan caalami ah oo ku meel gaar ah oo xasilinta ah qaraarkaasi golaha ammaanka uu soo gudbiyey oo Mareykanku uu diyaariyey ayaa dhisaya golaha nabadda kaasi oo ah mid ku meel gaar ah oo dejin doona qaab dhismeedka guud isla markaasina isku dabari doona maalgelinta lagama maarmaanka oo ah dib u dhiska Mareykanka Gaza si waafaqsan qorshaha nabadeed ee 20 qodob ka kooban ee Trump uu ku doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Gaza wahagaag markan waxaynu eegaynaa sheeka dagaalka la xiriirta laakiin la yaab leh Karim Khan waa ninkii dacwadu ku soo oogay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wasiirkii hore ee gaashaandhigga Yoav Gallant iyo sarkaal sare oo ka tirsanaa guutooyinka Al-Qassam ee garabka hubaysan ee ururka Hamas haddaba Karim Khan asalkiisa oo Pakistani laakiin dhalashada waddanka Britain ayuu haystaa wuxuu leeyahay intaana soo saarin go'aankii Netanyahu lagu soo xiri lahaa dowladda Britain ayaa ii hanjabtay haddaba aynu eegno warar arrimahan la xiriira oo warbaahintu ay wax ka qorayso xeer ilaaliyaha maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ICC Karim Khan ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Britain ay ku hanjabtay in ay joojin doonto maalgelinta maxkamadda isla markaasna ay ka bixi doonto axdiga lagu dhisay maxkamadaasi ee loo yaqaan xeerka Rome haddii ICC ay soo saarto amar lagu soo qabanayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu Karim Khan ayaa arrintan ku xusay qoraal uu u gudbiyey maxkamadda si uu u difaaco go'aankiisa ku aadan dacwad ku oogista Netanyahu wuxuu sheegay in 23 Abriil 2024 uu helay wicitaan adag oo uga yimid mas'uul Ingiriis ah oo uusan magacaabin inkastoo warbaahinta Ingiriisku ay tilmaamtay in wicitaankaasi uu ka yimid xogayihii amuuraha dibadda ee Britain David Cameron Khan ayaa sheegay in mas'uulkaasi uu ku tilmaamay warqadaha qabashada ee ka dhanka Netanyahu iyo wasiirkii hore ee difaaca Israa'iil Yoav Gallant kuwa xad daaf ah xeer ilaaliyuhu wuxuu intaasi ku daray in hanjabaadaha Ingiriiska aysan ahayn kaliya digninaha uu helay laakiin sidoo kale dignin uu ka helay mas'uul Amerikaan ah oo sheegaya in tilaabadaasi waa haddii loo jaro warqadda soo qabashada Netanyahu ay keeni karto cawaaqib musiibo ah wicitaan kale ayuu sheegay Khan in kowdii bishii May 2024 uu ka helay senator Lindsey Graham oo ka mid ah aqalka senadka Mareykanka waxaana uga digay arrintaas inay keeni karto in Hamas ay disho maxaabiista Israa'iil Khan ayaa sheegay in uu diiday dalabyada dib u dhigista amarka soo qabashada isagoo ku adkaystay in Israa'iil aysan muujin wax diyaar ah oo ay kula shaqaynayso ICC ama ay ku bedesho dhaqankeeda wuxuu sidoo kale xaqiijiyay in guddi khubaro sharci ah oo caalami ah ay la sameeyeen qiimeynta awoodda maxkamadda ee dacwadda ka dhanka Netanyahu Gallant iyo 3 xubnood oo ka tirsan ururka Hamas inkastoo la sheegay in Ingiriisku si qarsoodi ah uu doonayay badbaadinta Netanyahu iyo inaan xukunka maxkamadda la soo saarin haddana London si rasmi ah uma diidin go'aanka ICC waxayna ku celisay inay u hoggaansami doonto axdiga Rome iyo waajibaadkiisa caalamiga ah way haddaba marka arrintu waxay maraysaa heerkaas Karim Khan wuxuu leeyahay intaas oo jeer ayaa digniin lii jeediyey waxaynu kaloo ka warqabnaa go'aankaas markuu soo baxay oo xilkan uu qabtay madaxweyne Donald Trump in maxkamadda la saaray cunaqabatayn oo barnaamijyadan ugu dambeeyay toddobaadyada waxaan idinku soo gudbinay mas'uul ka tirsan maxkamadda waa madaxweyne ku-xigeenka oo leh wayna saamaysa arrinta maxkamadda cunaqabataynta la saaray wuxuuna leeyahay waxaana ku daray liiskii waxa loogu yeeray argagixisada arrintaas marka wuxuu yidhi arrin fiican ma aha marka waxaa la isku haystaa waxay tahay waddamadii reer galbeedka xeerarka ay dejiyeen inaysan ku dhaqmayn oo ah maxkamaddan dhismaheeda waxaan kaloo ognahay waddanka Hungary inuu ka baxay maxkamadda gebi ahaanba maxay tahay sababtu Netanyahu booqanayay sanadkii hore bishii Abriil rali hada sanadkan bishii Abriil waddanka Hungary
dowladda Hungary baa shirtay way ka baxday maxkamaddii waa waddanka kaliya ee midowga Yurub ka tirsan oo maxkamadda hadda xubin aan ka ahayn marka Karim Khan wuxuu leeyahay dowladda Britain waxay nagu tiri maxkamadda maalgelinta aan siinina waa joojinayna waana ka baxayna xeerka lagu dhisay maxkamadda haddii aad soo saarto warqadda soo qabashada Netanyahu laakiin isagu wuxuu leeyahay go'aankii waa qaadanay waana soo saarnay buu yiri arrintii xaaladdu markii waa adagta 2 maalmood ka hor waxaan idin soo gudbinay maamulka Donald Trump oo maxkamadda ugu caga jugleeyay cunaqabatayn dheeraada in la saari doono maxay tahay sababtu waxa la yiri maxkamaddu waa inay soo saartaa warqad ay leedahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inta xilka uu hayo iyo haddii uu ka degaba wax dacwada laguma furi karo oo way maxkamadda markay dacweynaysaa marka ma waxay ka adag tahay dagaalka Suudaan dadkii ka qayb qaatay Liberia Sierra Leone Uganda kooxdii la oran jiray LRA inkastoo hogaamiyaashii Yugoslavia in badan oo ka mid ah maxkamadda la keenay iyo madaxweynihii hore ee Philippines haddana waxa leeyahay madaxdii reer Yurub ayaa loo baahan yahay maxkamadda la yarkeeno Ruushku markuu ku duulay Ukraine 2022 maxkamaddu waxay soo saartay amar soo qabasho la soo qabanaya Putin laakiin Putin wuxuu sameeyay asna maxkamadda garsoorayaashii dhan wuxuu yiri hal soo qabta ayagana marka waxa la isweydiinaya waxa leeyahay reer Yurub xeerarka ay dejiyeen aawa annaga ma cadda sidaas ah qobrada reer Yurub baa sidaas ah iyo dadka qawaaniinta yaqaan sheekadaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkii inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgeli shirkadda qibla